waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal waxaa jira wax dadka iyo duunyadu ay wadaagaan iyo waxyaabo ay ku kala duwan yihiin. waxay wadaagaan mucurtida asaaska ah ee labadu ay isaga midka yihiin, taasoo ah baadka, biyaha iyo dhammaan wixii nolosha ku hayn kara, ku walibana uu baahi joogta ah u qabo. maxaa haddaba labadu ay ku kala gedisan yihiin? siday u badan tahay, duunyada oo isugu jirta duurjoog, dabjoog, xamaarato, biribiyoodii qaar kaleba dadka way ka awood roon tahay marka laga eego dhinaca muruqa, ilkaha, cidiyaha iyo sida sunta walxaha jidhkooda ku beeran ee inay wax isaga rabaan loogu laray. hase ahaatee waxaa jirta arrin intaasba ka weyn oo ka culus, labaduna ay ku kala duwan yihiin. waa garaadka oo si gaara dadka loogu galladay, duunyadase laga hoojiyey. noolaha iyo dhammaan abuurta ifka dushiisa ku uuman waa garaadka wuxuu dadku ku muquuniyey. sidoo kalena waa garaadka wuxuu ku haweystay inuu ku duulo meerayaasha kale si uu u soo ogaado bal noole ka duwan amaba ka aqoon rooni in hawada sare ee dhulka ka baxsan uu ku dhaqan yahay iyo in kale. wuxuu kaloo garaadku aadanaha ku awood siiyey in maalinba maalinta ka dambaysa uu hababka noloshiisa sii wanaajiyo, isla markaasna uu yeesho dhaqamo kuwa duunyada ka sarreeya. dhaqamadaas aadanuhu leeyahay si aanay duunyadu lahayn waxaa ka mid ah wadaxaajoodka, oo ah tab uu wax ku furdaamiyo marka laba dhinac uu qoonsi kala galo, dabadeedna ay isku afgartaan in isqoonsigaas ay iyagu ka heshiiyaan iyada oo aan cid saddexaadi soo dhexgelin. waa dabeecad aadanaha u gaara oo markay dhexdiisa ka tufanto uu ku baajiyo geeri iyo dhiig badan oo daadan lahaa. waa runoo in la isdareensado ama la isqoomaa waxay qayb ka tahay dabeecadaha uu dadku uurka hooyadii kala soo baxo. hase ahaatee taasi markay dhacdo, sida ummadaha kale ayay soomaalidii horena yeeli jirtay oo xagga wadaxaajoodka ayay u bayri jirtay. sidaas awgeed waa gef iyo waraan mudac ka daabnayn haddii lagu doodo in soomaalidii hore ay ahayd ummad goor kastaba dagaal iyo dirar u taagan, nabaddana ku xajiimoota. dhinacyo badan markii wax laga eego, wadaxaajoodka oo ah in kolba wixii la isku qabto laga wada hadlaa waa arrin weligeedba hiddaha soomaalida ka mid ahayd. taasna waxaa xogteeda loogu tegi karaa qaybaha suugaanteeda oo maanse iyo maahmaahba leh. aan haddaba tusaalayaal ka soo qaata suugaanta caynkaasa ee muujinaysa siday soomaalidii hore wadaxaajoodka u aaminsanayd. waxay rumaysnayd haddiiba in la ishor fadhiisto, in la wada hadlana lagu heshiiyo inba la heshiiyey, oo waa tii ay ku mahmaaheen aan wada hadallo waa aan heshiino. labada dhinac kolkay isa soo hor fadhiistaanna waxaa jiray habdhaqan la isla yaqaan oo dhinac waliba uu ilaaliyo intuu wadaxaajoodku socdo. waxaa habdhaqankaas ka mid ah in la isdhegaysto, in dhinac waliba markuu hadalka jeedsanayo uu dhinaca kale dhagaha u raariciyo ilaa uu dacwigiisa ka dhammaysto. habdhaqankaas ninka ilaalin waaya, oo ragga qaar baa afloolata leh dhinaca kale hadalka ka dhabqiya amaba ka soo dhex gala, way ku qoonsan jireen. iyada oo aan canaan ka taganayn ayaa waxaa loo sheegi jiray in hadalka moogiisa uu sugo, markaasoo la xusuusin jiray mahmaahdii ahayd hadal hadal kama dheera, ama tii kale ee ahayd caanaa la wadaagaaye hadal lama wadaago. dabadeedna intuu isceebsado ayuu iska aamusi jiray. hase ahaatee waxaa marmar goobta la fadhiyo ka dhex kici jiray nin dabeecad kulul oo aan mahmaahu hakine ay uga sii daraan. kaasoo kalena samajeclaha labada dhinac ayaa iska kaashan jiray ilaa uu sida ragga kale u xasilo ee uu salka dhulka dhigo. arrintaas oo kale tabta wax looga qaban karana waxaa tixihiisa kuwa ugu caansan middood kaga taliyey gabyaagii murtida badnaa ee qamaan burxan la odhan jiray. waxaan u jeedaa tixdii hooriskeedu ahaa walee ina ragow tale adduun taada un ma aha.
ee sayid maxamed cabdilla xasan uu ula dan lahaa kana hortiriyey mar ay banka qoraxay ku kulmeen bilowgii 1920 tuduc tixdaas ku jiray ayuu qamaan inoogu sheegayaa labada dhinac kii ay doonaan ha ka soo jeedeen in loo baahan yahay in la isla xakameeyo odayga macangaga ah iyo gabanka goobdumiska ah ee isagu aan waxba xeerinayn taladiisuna ay muruqiisa ku sargo-an tahay. waxaa tixdaa ka mid ahaa tamad aada adigoo tagoo fara ku taagaystay tunka yaa ku soo qaban haddaad tarad ku xaajooto midunbaa tusmada kaa raroo lagugu taagaaye walaa ina ragow tala adduun taada un ma aha. haddaad adigu inaad taajir tahay tuhunta uurkaaga toodowga xoolaha midbaa tuludku sii dheeray walaa ina ragow tala adduun taada un ma aha. ninkii taaninimo loo qiro sida tilmiigaasa oon lagu tawixin oon legdini timaha booraynin midunbaa tab kula soo baxa oo laga tix qaadaayo walaa ina ragow tala adduun taada un ma aha. toolmooni hadal waa inuu tal u dhexeeyaayo tuushkii xun iyo wiil yar waa la isla tiirsaaye taabkaa laguu furi haddii kibir ku taabtaaye walaa ina ragow tala adduun taada un ma aha. arrin hebla in laga wada xaajoodo marka la isla garto labada dhinac wuxuu mid waliba ka kale ka filan jiray niyad wanaag inuu geedka ku yimaado. waxaa raggii hore ka reebanaa beenta masabidka iyo hagaga intaasbana ninkii lagu bartaa wuxuu dadka dhexdiisa ka ahaa wax takooranoo in dheg taraq loo siiyo aan mudnayn. duul fahmo badan bay ahaayeen waxay haddiiba garan jireen ninka ishu u daban tahay ee wax ugu wacanba arrinta la isku hayo in laga heshiiyo aan doonayn. markaas bay ku maahmaaheen carab dalab leh luga dalab leh laga garan og. dhinaca kale in la is-aamino markay isku boorinayaan waxay odhan jireen muslimow run sheeg muslimowna uga qaado. waxay ku dadaali jireen arrinta loo fadhiyaa inaysan qir iyo qir soo joogsane dhinac waliba halkuwuu ka taagnaa intuu ka soo durko in meel dhexe la isugu yimaado. taasna waxay ka ahaayeen mahmaahdii ahayd jiid aan ku jiidee waa gacma daalis. mararka qaarkood waxaa la arki jiray nin hadalka jecel oo ararta ku dheeraada hadduu mar qaatana aan ka bixine kol hore kuu yidhi ku noqnoqda kaasoo marka dambe inta lagu qoonsado iyada oo la wada maqlaayo lagu odhan jiray hebelow hadal nuxurkaa laga abbaaraaye soo gaabi. ragga ay isku dhinaca ka soo jeedaan arrin ay mar hore ka hadleen kii ku soo celceliyana inta lagu daraabo ayaa weliba loogu mahmaahi jiray anaa haray looma hadlee waxbaa haray baa loo hadla. in halkan lagu xuso waxaa kaloo mudan in labada qolo ama labada dhinac ay wada xaajoonayaan aanay isku luuri jirin danayna jirin tirada ay qolo waliba goobta ku joogtaa inay isla eg tahay iyo inay kala badan tahay. waxaaba dhici jirtay 3 nin oo qora erga ka kooban reero idilna ka wakiilihi in rag 20 gaaraya ay guryahooda ugu timaado dabadeedna ay kala xaajooto arrimo waaweyn oo inay ka heshiiyaan ay u ballansanaayeen. daacadnimada 3daas nin ayaa ciddii soo dirsatay ku kalsoonay. sidaa darteedna hiddaheeda laguma aqoon weedha ah looma dhamma oo waayadan wada xaajood kasta ay soomaalidu ku wiiqdo. taas beddelkeedana waxay ku dhaqmi jireen mahmaahdii ahayd tol meeshii nin ka jooga waa joogaa meeshii ay laba ka joogtana waa ku dhan yahay. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.